waa Jibriil Maxamed Cabdulaahi aniga waxaan ahay senior urban planner ama qorsheeyaha sare oo gobolka Banaadir waliba waxa ka tirsanahay qaybta unuga xalka waara ee gobolka Banaadir ayaduna marka aniga primarily waxa ka shaqeynayay naqshadan 300 guriyo oo guri dadweynaha ama social housing oo lagu talagalay barakacayaasha iyo waliba dadka oo danyarta oo magaalada Muqdisho joogo waa markii ugu horeysay Soomaaliya sidii dawladda hore si aad bare oo burburto laga hirgeliyo sheeg social housing so waxana taas sheeg taabageliye amba waxa waaye sheeg fikradeeda lahay oo gobolka Banaadir gaar ahaan unitka DSU-ga amba unuga xalka waara waxaan u sameynay guriyeen dadkeena kala duwan dadka baahiyaha gaarka qabo dadka aanan heli karin financial qaab u degaan guryaha oo awood u lahayn wax badan iska diibaan marka muhiimadda ee leedahay ay saameynta this is a pilot project marka insha Allah waxa arki doonaa shaqo iyo talaabo weyn qaadi doonaa dhinaca guriyeynta magaaladan gobol ahaan dawlad ahaan anagoo isticmaalayno materialka wadankeena laga helo misaloo yaqaan soil bricks and soil established and stabilized soil bricks kuwaas oo ugu talagalnay in site-ka naftirkiisa aan ka soo qaadno caradii aan ugu khidmeeyno caradii naftirkeeda in dadkii loogu sameeyo guri markaasna adag very cheap mise raqiis ay degi karaan marka qorshuhu DSU ee wado waa qorshe noocaas ah oo magaaladan lagu horumarinayo magaaladan caasimada waxay u tahay 18 gobol ee caasimadooda tahay marka waxa magaalo dadka dhan ay soo hiigsaayaan Soomaalina ay ku faanayso waxa aad u mahadnaqanaya gudoomiyihii hore Allah yarxamo engineer Yariso oo aad ugu dambeeyay qorshahan iyo gudoomiyihii hadda Umar Filish oo aad u taageersan asagana iyo waliba dadka dhan gobolka Banaadir aad ugu faraxsanahay qaabka loo soo celiyo quruxda magaalada dhinaca taalooyinka insha Allah sidoo kale guriyaha taariikhiga way ku xigto doonaan كذلك حرجينا دتكين بركعياش دباتوين كهستينا دبات إنا حل وهلنا إنا قرب مسقيب وين كقاعدنا هذانا إنجينيرز فيلد إنجينير كجرو عند آدو فربضنا هاي إنا قيب وين كقاعدنا رجينا بإذن الله تعالى وضن كينا قاب وصونا نقول هاي waxaan ku dhashay Muqdisho waxaan ku barbaaray Muqdisho waxaan jeclahay wadankayga inay hormaro gaar ahaan caasimadii aan ku barbaaray oo aan ku dhashay inay hormarto ee qurux badnaato sidaan iyo si kasii badan ay noqoto waan rajeynayaa insha Allah one day I hope waxaan ka arkaa isbedelka quruxda badan ay sameynayso sanadada hadda lagu jiro iyo wixii ka horeysay waxaan rajeynayaa sanadada soo socdo inay intaas ka sii qurux badnaato insha Allah waan jeclahay dalkayga hooyo gaar ahaan caasimadda aan ku dhashay Muqdisho waxaan jeclahay inay sii horumarto aan horumarkeeda aan arko heriya habeen ayadoo ifaysa marnaba aan dimin hadda 300 guri baa bilawnay insha Allah waxaan rajeynayaa 10 kun oo guri in sanadka dambe ka hadlayno marka insha Allah wax wanaagsan baan rajeynayaa adiga urkeyga ku taa